inay taagan tahay xornimo inay qaali tahay xalaal gobonnimadu tahay calanka loo qubixin jiro xabaalgeesu ugu dhac dadweynahan xaadirka ah sidaynu xusuusiya taariikhda toddobaadkiiba laba goor hadaan oo kale aanu halkan idinka soo baahino daawadayaal barnaamijkan oo ah barnaamij taariikhi oo guud ahaanba ka soo qaadano taariikhdii halgankii xoreynta dalka Soomaaliya bal habeenkan caawaana waxaanu si gaar ah ugu eegnaa Axmed Maxamed Maxamuud Siilaani oo aad wada garanaysaan oo ahaa gudoomiyihii ururka sanad waliba ahaa gudoomiyihii ugu muddada dheeraad gudoomiyashii soo maray ururkii xoreynta dalka Soomaaliya bal sida waqtigiisii sida uu talaabay ee uu aslam kamid noqoshadiisa iyo marxaladihii uu soo maray iyo waliba xilligii gudoomiyenimadiisa anagoo dhinacyo badan ka eegna ayaa ugu horreyn waxaan ku bilownay bal inuu warbixin kooban naga siyaabihii kala duwanaa ee uu ka dhashay halganka xoreynta dalkan Soomaaliya bismillaahir rahmaanir rahiim horta marka laga hadlayo taariikhda aslam iyo halgankeedii waa taariikh aan qofna oran karaynin sheegi karaynin maalinta ay bilaabantay iyo halka laga soo bilaabay taariikhda bani aadamku iyo dhaqdhaqaaqyada caynkaasi waa wax taxana ah qayb baa ka horeysay qayb baa dhashay taariikhda midaba tallaabay ayay dhashaa waxaan ku noqonaynaa waqtigii ilaa waqtigii xorriyadda intaynu qaadanay Soomaaliland qaaratay 60kii ee aynu ku biiray koonfurta si degdeg iyadoo caatifadii waqtigaa jirtay magaca Soomaalinimada iyo wadannimada guud ahaan oo ahayd dabayl maraysa dalalka Afrika iyo caalamka saddexaad oo dhan
ومركا كجلجلنا إنه استعمار كي كبحه كجيم الدبلها يوروب كجيم إنه كبح قريب كمل هاي تاسي عاطفة داسي حماسة داسي حرية دون كاس إذا دريك عن كاسي وكينا جيي إنه حمر إنه عن سوى عن وقرقر تمن إنه عن كفر سن وحين ولا إما دونتي وحين ولا إما نين وأحيا وطني الصومالي معه عاطفة إنه ودي أي نقول شفتو وإنه سدعة حرية ديني بدح بناني دي كودي بني وولي بقى حتى مدحدي وقت قاعد شوكتي سكستوا هكا الحياة قاربا مرها صوفولن مربا محوها ترين كاساقل مرة قار مركي وربا الهاور بل أن كفر سمو وينا كبودين أن مدح بناني دا قادم إيا قار عاطفة دا كرع سنة الشعب قالها ما أن مركب إسلام markii muddo joogeen arkay inaa wuxuu sida ahayn ilaa de waqtiga waxa uu socotay dareemo kala duwan waati waqtiga xataa ciidamada markii la israacay markiiba dareen uu ku dhashay inqilaab la isku day in la sameeyo dhalinyarada waqtiga saraakiishu tii qaarkeed waati markii dastuurkii ugu horeeyay ee lixda kale soo saarayay waa kuwa dadka reer waqooyiga ka codayay ee diiday yiri muxuu nooma codto magacyadan ay la bixin laakiin wuxuu dhaw waxaan gartay waa halgan taxana ummadda gudaad markii uu siyaad barre dalka qabsaday waqtiga uu dalka qabsaday xaalad cusub ayaa dalka ka dhalatay inqilaabkii marka uu yimid oo waliba inqilaabka dhacay ruuxii saraakiishii reer waqooyigu aha ay ka ciyaarayeen door weyn dadkii waqtiga hore taageerayay baan dadkii markaa loo yeedhay maamulka wax ka qabtay baa waan xusuustaa taladii ugu horeeyay waxaan xusuustaa maalintii ay anigu baan ogeyd maalintii inqilaab ku dhacay laakiin waxaan dadkii ku gubaabin jiray saraakiisha aan naqaano iyadoo qolooyin mutacalimiina oo badan oo nin Dr. Xasan Cali Marle uu chairman oo yahay ayaa maalintii ay meesha qabsadeen militarigu nala yidhi command police meel oo jiray oo police ku laan jiray korkeeda ku shaqo marka in military qabsadeen baan ognahay annagu cid markaa haysataa ma naqaan siyaad barana waan qoor u meel gabigiisaba waqtiga isaga ah ciidamadu madaxaana ciidamada shaqo kuma aanan lahayn saraakiisha aanu aan qiinay ee waqooyiga asalkooda mooyaan talooyin baan soo jeedinay talooyinka aanu soo jeedinay waxaan oo iman jiray ninka caydiid leeyahay caydiid oo marka aan ahayn wali SRC iyo laba samayn ninkaas aanu iman jiray galab walba wuxuu naga qaari jiray wixii aanu maalinta ku talino waqtiga xerada military iyagu baa ku jiray ma aanan ogeyn inta ay yihiin iyo sida noqon doonaan wali ismay kala safeen laftigoodu oo lama samayn wixii loo jiray golihii sare kacaanka ma samayn waa markay isabaabulayeen ay iyagu gudahooda ka isa safeynayeen mara talooyinka aanu soo jeedin anaguna dhowr iyo 40 baan ahayn wara civil ah oo dadkii markaa de mutacalimiintii dalka ka muuqmuqday la filayay ama shaqada dawladda ku jiraan banaanka ka jooga talooyinkan dhiibnay waxa ka mid ahaa militarigu markuu maamulka soo gali militariga meesha qabsaday iyo maamulka soo galin dad mutacalimiina haw dhiibeen iyagu dusha ka ilaaliyeen haddii nidaamka dawladda la sameeyo uu xumaado marka la soo fargashay laakiin iyagu marnaba militarigu meesha ay yimaadaan corruption iyo dhibaato timaada yay soo galin baa ka mid ahaa talooyinkii aan bixinay talooyinka aan bixinay waxa ka mid ahaa yaan qof qurihi golaha ciidamadu dhisayaan dusha ka ilaalinaya iyo golaha dawladda yaan qof gudoomiye ka wada noqon talooyinkan bariga dibna ba ka mid ahaayeen akhirkii waa tii iyaguna iskala safeeyeen 25 bay iska soo saareen maalintii dambe waxaa nolol kana galal cascas oo ragaygi meesha ku jira dhowr iyo 40 ahaa malaha 12 ka mid ah anigu aan ka mid ahaa ayaa ragii loogu yeeray ee wasiirnimada loogu yeeray ka mid noqday horta sidaas uu ku dhashay aan hawsh ku galay aan ku gallo waqtiga hore muddo wax naga yeelay qodob mooyaan qodobkii kale askartii naga yeeleen oo waxa weeye intii muddo ah dhowr sanadood dawladdu waxay ka koobnay maamulku wuxuu ka koobnaa iyagana SRC baa loo jiray golaha sare ee kacaanka laakiin dawladdu waxay ka koobnayd mutacalimiin ba ka koobnayd civil u badan
iyo dad kale oo wax garad markaas loo arkiyo waayo aragha runtii berigaa waxyaabo badan iyagu xagga nabadgelyada sida u dhantay iyaga hayo marka horeba la haray wixii nabadgelyada ku saabsan wixii ciidamada ku saabsan iyo wixii nabadgelyada yiraahdaan oo iyaga markaa hawshaas ay guuray laakiin maamulka waqtiga inkastoo ay cadaadis badan xaggooda ay ka imanayeen waliba iyagu waqtiga ay safeynayeen haddana dalka waxyaabo fara badan baa ka qabsooday oo xagga waxqabashada hawlo badan baa waqtiyaasha hore runtii socday intii ay dadka mutacalimiinta ay xukunka gacanta ku hayeen anigu wasaaradda qorsheynta ayaan ahaa dadkii loo dhiibay been ma sheegay maanta waraaqdii ma hortaalo laakiin waxaan xusuustaa markii ay dhacday meeshii lagu kala dareeray ee dadkii xixiya bilaabmeen ee dadkii markaa la kala yaacay suuqi way welwelin markii askarta ay meesha haystay waa la iyar waxa la yiri warbal meesha adiga dhaqaaliyahan ahaa wasaaradda qorsheyntana joogay maxaa tala ah waxaan soo diyaariyay barnaamij la yiraahdo crash program ingiriisi baan ku qoray beriga barnaamij la crash program ereyga la oran jiray berigii dambe wuxuu magacaas ku haray beerihii laga samayn jiray ereyda webiga agtiisa iyo crash xagga beeraha ayuu magacu ku haray laakiin markii hore magacu muu ahayn crash programka aan u bixiyay muu ahayn beeraha kuma ekayn wuxuu beeraha iyo wax iska wax qabsan loo oran jiray oo dhan goormay ahayd waqtigii ka mid noqotay ururkii xoreynta dalka Soomaaliland ee sanad halkaasaan ka soo wadayay ilaa beginnigiisii waxaan ka soo waday uu damala shirkada bay la dheeraatay igu fogaatay halka markay ka soo gudbay waxa ka soo gudubtay waatii nidaamkii baa badho qabiil galay oo aburis baray galay oo cadaadis fara badan galay taa dareenkaas wuxuu ahaa dareen kulligii dibad iyo gudubna wada saameeyay haddaanu dadkii reer waqooyiga ahaa ee ummadii la cadaadinayaan u muuqanay marka ilaa waqtiga waan ku jiray ilaa waqtiga aan dawladda ku jiray dhismihiisa u dagaalankiisa wadooyinkiisa mashaariiciisa markaaba dareenkaas aan ugu jiro aan ku jiray magaca islam lama oran jirin laakiin wuxuu ahaa dareen uu hiilis waqooyi ah dalka wixii loo qabanay waa loo qabanayay dalka inta kalena waan u qabanayno daacad baan u ahayn laakiin waxa nagu jiray dagaal sokayana wuu nagu jiray oo wuxuu qabashada iyo huulinta mashaariicda ka socota hadday dekada berbera tahay hadday warshada sibilka berbera tahay gudiyaashii anigu aan ka madax ahaabaa waxaasoo dhan waragooniyey hadday wadada berbere iyo burco dhismeeda tahay hadday tahay muxuu ahay mashaariic ceel bardaala ay tahay hadday ahayd mashaariicdii weel bangi ay samaynayeen tag washaaro tahay waxaasoo dhan waxay wasaaradda hawlihii aanu anagu qabanayna bay ka mid ahay waxaasoo dhan halka ka mid ahay ka soo kac markii uu dareenku fuday uu fiday uu nagu dhamaa way jireen dabcan dad ka mid ahaa reer waqooyigan oo aan dagaalkaas ku jirin qaar la adeegsanayana way jireen ururka asana muu ahayn urur ka bilaabmay koox isu timid markaa dareen fidsan oo carabta fidsan oo gudaha fidsan oo dawladda ku jira oo laamaha dibadda meel walba dee laama markaa jirin dadka dibadda jooga ku wada fidsan ayuu ahaa markii koob iyo siddeetankii markii lagu dhawaaqayay ururka asana qoladeeda guduhu shirar baan isugu nimid waxa dareenka naga soo gaaraya qolada aad strong oo ahayd markaa waxay ahayd dadka Sacuudi Arabiya carabta jooga iyo dareenka qoladeeda gudaha jooga ayaa xoog isku xidhnaa burca wax ka dhisnaayeen hargeysa wax ka dhisnaayeen xamar baa wax ka dhisnaa dibadday wax ka wada dhisnaayeen dhismaha waxaan u jeedaa unugyo dareenka wada qaybsanaya ay jireen ciddii ugu horreysay markaa qolada carabta jooga qolooyin baa markaa ku fakaraya in la sameeyo wax la yidhaahdo maalan jamciyadda isxaaqiya la yidhaahdo waayo dadka aad loo cadaadinaya dadka magacaa wata ayuu ahaa anigu qoladii guduhu waxaan ka daaya waxaanu doonaynaa ummadda ka hor meelna dagaal gashe yaynaan magacaa yuu inagu noqonayna aan magac Soomaalida balaaran ahaan markii dabadda koob iyo siddeetankii halkaa lagu sameeyey waanu hawsheeda la soconay waanu cid ka diraynay annagu aanu ka dignay annagu xamar joogan aanu ka diraynay waxa dhacday anigu markaa waxaan baxay 82kii horaantiisii ayaan baxay horta intaanaa bixin berigii dagaalka laga soo noqday waxaa jiray guddi
waqtigiisa dare loo saaray oo layidhi ka taliya arrimihii Soomaaliyeed maqnaa guddida aanu ka mid baan ahaa wax reer waqooyi ani ninka cali khaliifiyada ku jiray inta kale rag wada mutacalimiin rag reer koonfureed bay ahaayeen waxa la dagaalkii Itoobiya waa ka si kastaba u dhacday aanu ku khasaaray dhibaatada badan ee ka timid maxaynu yeelina guddidaas waxay ku talisay Itoobiya in la heshiiyo Kenya la heshiiyo si dadka Itoobiya Kenya ku dhaqan ay iskuul u helaan oo ceelo u helaan oo xubartaan oo dagaalkii mar haddii aynu waxba inaan soo hadhin ee aynu soddon sano intaynu dagaalamayna aynu wadnay intaynu muddo badan ciidamo badan waa weyn dhisanay aynu meel ku gaari weynay bal si dadkaasi nabad u helo oo ay tacliin u bartaan dee tii hore inoo shaqayn mayse waynagii khamaree bal in la yidhaahdo dadka luqadooda diintooda dhaqankooda ha loo dayo horumar ha loo sameeyo markaan ogaanay in Itoobiya lala heshiinayo markaa weeye markaan anigu soo warramayay aniga wax gudaha ku jiray yaanu qoradii London joogtay markaan ilay Itoobiya taga qoradii wali waqtiga waxa lagu yar buuxinay oo arkayeen in Itoobiya ay wali tahay cadowgii Soomaaliya oo taa dareenkeeda ay xogta ma aysan hayn markaa weeye markaan anagu xamar joogno ku tashanana in saraakiil laga diro xamar gudaheeda markaa qoladii dibadda badrin qoladii gudaha diray saraakiisha Maxamed Kaani Aadashiina iyo Axmed Dhagax iyo ugu horeeyeen tagay ilaa Itoobiya la inaga horeyn Itoobiya la heshiinayay ninka warka keenay soo xirayna anigu ahayd markaa xogogaalka aha ee guddida ka midka marka ilaa begin gaal la tagayay taladeedii arrinkeeda sidaas aan ugu jiray markii aan baxay koobiye steedkii aan tagay ee labiye steedkii horaanteedii aan tagay anigoo maraya markaa wali yacyood bay ahayd ururkii ka dhismay London koobiye steedkii ka dhismay wali aad buu u ahaa u jilicsanaa guddoomiyahooda ugu horeeyay Allahu naxariis Axmed Jimcaale muddo aan madax dhowr bilooda ayay ku bedeleen shir baa Itoobiya la isugu imanayay meesha soo daray la yiraahdo ayaa loo balansanaa waqtigaas baan anigu muxuu ahay carabta marayay dadkii carabta oo jooga Sacuudiga ayaan la kulmay ragga arka waxa ka mid Axmed Jimcaale waxa ka mid Xasan Aadan Waraadiid yaan waqtiga kula kulmay shirka ku sii socday aniga dad badan halka ga bilaabay waayo ama halganka halka kaga jiray dawladda gudaheeda markaan ku jiray iyo dee magacaan ku lahayd dadku barka qabay aan hadii gooraale muxuu ahay siyaad barre iskaga horima jiray hawlo badan iska hor jiray baa la ogaa waxa la igu bilaabay inaan meesha tago oo hoggaanka u qabto waxaan u qaban maayo kuwii joogi aan wadno Axmed Maxamed Jimcaale waan arkay jiddaan ku arkay waxaan Axmed oo maanta isagoo markaa waan argoosanaya waan tagayaa meesha la iga baridi karo ma ogoli waxaad maalina waxba dhistaa maalina waxba dhistaa maanta haddii ay halka martay iska daa waxba taa dhibaato dambe haynagu abuurin anigu markaa la dhabaan tagay landa anigoo aan week joogin ayaa la yidhi ilo qabo muxuu ahay laantii UK SLM niman odayaal baa markaasi hayo odayaal dee siimaan iyo dad aynkaas oo isku dhex jiray iyo dhalinyaro aad u waaweyn laakiin aan markaas wuxuu wala iska ahayn wax fudud marka halkaasaan markaan la dhigay markiiba waxaan qabtay laantii SLM ee UK muddo yar ka bacdi waxaan ku soo wada wareegay Europe iyo dhulka Carabta oo dhan baan ku soo wareegay guddiyaal iyo dareen jireen laakiin wax guddiyaal iyo xafiis rasmi meel kama dhiseen markaa SLM kulligood markaa aniga soo wada dhisay 82 waxaan soo maray American tagay America Washington San Diego meelahaas oo dhan laamihii waa ka soo wada furay dhulka Carabta iyo Europe waa ku soo wada furay marka dambe hawsha waa la igula jiray oo waa la fadgareynayay oo waa la taakuleeyay sida markay ahayd waraaqo fara badan waa tii mar walba dhibaatooyin fara badan baa jiray Itoobiya laftigeeda oo daruurtii marka loo dhaco khilaafyo badan way jireen mar walba ururka dhexdiisa cadaadis badan waa lagu hayay jabadii kale ka waaweynay meesha joogay ka horeeyay waxay ku hayeen cadaadis fara badan bay ku hayeen SNM taageerada dibadda mooyaane taageerooyin badan oo duwal badan oo taageerooyin badan siinayay oo aad badna waqtiga wali ma aysan jirin inkastoo Itoobiya wax siin jirtay adana wax siin jirtay
laakiin haddana wixii SSDF soo geli jiray ma aysan soo gelinin sidaa markay ahayd muddo intee leeg bad haysay markaa laanta UK ee ururka sano waxaan hayay 2 sano hayay 2 sano aan joogay baan hayay 84kii ayaan markaa waraaqihii bay igu batay codsigii bay igu batay ilo kaale baa lahaa calaa xal adigu labi 84kii shirki 84kii baan tagay August ayaa jigjiga shirki la isugu yimid la igu khasbay aan laahdo inaan gudoomiyaha noqdo oo unanimous si wada jira la isugu raacay waan xusuustaa anigu markaa isumaan taagin muxuu ahay madaxnimada laakiin adigu dareemo jiray magacaan dalka gudihiisa ku lahaa hawlaha aan dibadda ku qabanayay oo ayaa daraadeed baa ilo adigu meesha qabo waxa laga soo gaarsiiyay ama urkaasi wuu kala tagay ama waad qabanaysaa baa laga soo gaarsiiyay ku heshiiyay baa haddii markii dambe inaydan muxuu anigu murashax maanahay sidaa daraadeed meeshii waa lagu heshiiyay waa la isku raacay in la ii dhiibo waqtigaa ma jirin cid u sharaxnayd gudoomiyenimada balse maya isla adigu dee ashkhaas markii hore rabtay waa jiray laakiin aniga shardiga oo kamid ah anigu murashax ma ihi haddii aad khasbasaan yaa isku raaca oo idinku wada jira ii wada dhiiba sidii baana dhacday oo dee cid islama kay taageerin muxuu ahay cali wadhiigle ninka la yidhaahdo reer koonfureedka ahaa yaa waxaan ku soo maray Rome branch baan ka soo furay oo Nicolina Maxamed la oran jiray iyo qooyinkana aniga ka soo kaxeeyay muxuu ahay Rome si uu u ballaadho dadka halganka inala gelaya ee u ballaadhaan oo aynu dad xamar iyo ka dagaalami kara inuu yeelano oo gudoomiye xigeen isagoo maqan baan gudoomiye xigeen loo magacaabay marka anigu warkiisa keenay waqtiga aan joognay shirka 84kii August shirka ka dhacay halkaas aan ku bilaabay 84kii gudoomiyaha ururka sano hawlihii ugu horeeyay qabato maxaad ka xasuustaa halo guriyaan qabanay wuxuu ahaa de horta tafaasiishu way iska fara badan tahay laakiin mid aan ka soo qaadno mesela ilaa waqtiga dagaaladii ugu waaweynaa ee magacyada waaweyn leh ee dhacay SNM riday kulligood waxa dhacay horta muddada dambe anigu aan maamulka aan hayay waxa ka mid ahaa burcaduuri waxa ka mid ahaa gudagalkii buuraha waxa ka mid ahaa waxa la wixii dagaaladii dambe waaweynaa oo dhacay buura la wada gelayo dhan iyo operations kii waaweynaa ama baleedka lagu galay ama meelaha kale lagu wada galay waxa waqtiga horta dhacay waqtigaas waxaan aad u xusuustaa waxa horta ka horeeyay oo anigu markaan madaxayn labada operation ugu waaweynaa dhacay wuxuu ahaa mid kii Mandheera lagu galay Mandheera xabsigeeda markii la jabiyay oo waqtiga anigu aan joogay muxuu ahaa la joogay iyo kii Cabdillaah iska lagu la baxsaday halka kan labada operation baa magac kuwa weyn markaa de magacyada laha buurihii la gelay waqtigii buuragalkii sidaas oo ahaa wuxuu ku dhashayna wuxuu ahaa marka anigu aan imid dawladda Ethiopia aad bay SSDF isugu arbushaadeen oo buuqoga taagnaa dagaalkooda soo haystay deesan quddeeda 3 jeer baa la isbedelay muddo muxuu ahay 2 sano gudahooda 3 jeer baa waxaan maleeyaa jacayl 6 bilood buu hayay Sheekh Yusuf Allahu naxariistee labadaba Allahu naxariistee Sheekh Yusuf muxuu ahay 2 jeer buu noqday oo aan muddadii aanu si wacan u dhamaysan sanad iyo 2 iyo waxaas ay wada ahaayeen Cabdulqaadir Koosare 9 bilood baabu uu hayay raggaasoo dhan waxay ragga aniga idhisay la shaqeeyay markii dambe laha ilo meesha qabo markaan Cabdulqaadir Koosare iyo Maxamed Kaahin iyo Aada Shiir Allah waxay raggaas hayay raggaasoo dhan iyo dhixle iyo raggaasoo dhan raggii laha ilo adiga qabanaya ayay ahaayeen hawsha ila wari runtii la'aantoodii wax la qabashay la'aantoodna waxba ma socdeen xisbigu sidoo dheeyahay iyo qalaamiirtiisu dhan waa ila shaqeynayeen tanshikeeda ha lahaato dhibaatadeeda ha lahaato waxa ay ku dhalatay waxaan xusuustaa maalinta Burcaduuri iyadoo ay nala joogaan dawladii wax bixinayay oo markaa Liibiya ay wakiil ka joogo dawladda Itoobiya qalaamiirteedu dhan ay joogaan oo nalagula shiraya dirdhabe ayaa waxa yahay maxaa dagaaladii u socon waayay labadiina jabarood dagaaladii ma socdaan anigu waqtigaas saraakiishii daragii horreeyay waraysto warkii iyo xogtii dhan waa wada hayaa markii warkii la siiyay aniga doodeedu waxay ahayd oo aan been ahayna dhab ahayd
waxaanu ka dagaalamayna dalkeena gudihiisa waa dalkeena iyagaa sheegta dhulka kan hawdkee aynu deganayna ummaddeena iyo dadkeenu degan yihiin Ethiopia iyadaa sheegata marka waxay yidhahdeen waa tanoo ilaa awaaraana lagu soo weerari jiray ilaa xeryahoodaan agtoodaan lagu soo weerari jiray waan ciidamadoodu isdhaqaajin jirin marka waxaan maxaan gudagalaa waxa weeye waxaanu daafacnaa dhulka idinku aad tahda annaga xukunna waan daafacnaa ciidankiinu naab jooga ayaan dhaqaaqay marka iyagoo taa la yaaban iyagoo taas aanu argumentkayga yahay oo warkii la hayo ayaa maalintaa annagoo wada fadhina oo la qiimeynayo ayaa waxaa soo dhacay warkii burcadure 21 muxuu ahay October burcadure waxa ku jirtay gudihiisa ciidankooduna waa jooga mana soo gurman waa dagaalka ciidan ku dhimanaya way hadeen mawduucan dib u soo noqono maxaad ka xasuusataa duruufihii ugu adkaa ee soo mara ururka xoreynta dalka ee sanam xilligii aad ahayd gudoomiyihii ururka duruufaha soo maray aad iyo aad bay u adkaayeen mar ay horta jilicsanaayeen oo iyo markaa waa dibacsanaayeen ma jirto ummad shacbi ah oo beela oo magac beeleed huwan oo dagaal shacbiga kula jirta dictator weyn oo hub iyo diyaarad iyo dabaabad iyo wax walba haysta kula dawladda mar fududiba ma aysan jirin kuwa aynu ka soo sheekeynayba horta runtii ugu weynaa oo markaa dee ta ugu daran waxay taa gudagalka ay ahayd maalinta ay ugu darreedeed aan xusuusto ay tahay xagga dagaalka iyo haddii ay tahay xag siyaasiya guulihii ugu waaweynaa intii aad ahayd gudoomiyihii ee sanam hadday tahay siyaasi iyo haddii ay tahay dagaalka kala horjeeda cadowga maxaad iyagana ka xasuusataa horta guulaha siyaasiga ugu weynaa wuxuu ahaa runtii inaanu hananay fiqadii muxuu ahay dawladdii Ethiopia aanu la joognay iyo kuwii taageerayaasheeda ahaaba iyo wax alla wixii dagaalamay jabada ciidda ka fara badan baa berigii hore dagaalamayay markii dambe waxaanu gaadhnay ilaa dawladdii Ethiopia ay tiraahdo xisbi urur dagaalyahana oo Soomaaliya oo aan asar mahayn oo aan ogolanayna ma jiro ilaa heerka ay gadhaan mid kale ahayd markii uu yimi Caydiid aniga u shafaac qaaday oo la weydiiyay ilaa aniga la weydiiyay looma ogolaan horta guulaha aanu gaadhay walkaas ka mid ah guulaha kale aanu gaadhay waxa ka mid ah shacbi badan baa soo qaxay ama dalka joogay iyadoo intii aan la soo qaxin wanagii furay xiriyihii qaxootiga annagoo markaa hore oo si aan u helno taa kale waxa ka mid ah xirfadaha aanu sameynay ee Ethiopia markii dambe ay nala garatay si aanu jabcida qurumaha raashin iyo uga helno haddii bariga aan sii fur lahayn illa intii aan Hargeysa laga qaxin laftigeeda ayaa muxuu ahay ayaan xiriyaha sii furay waxa aan ku guulaysanay bay ka mid ahaayeen ee loo diyaariyay dadweynaha oo barigii magaalooyinka laga baxay haddaan xiriyaha sii furaan lahayn dhibaato fara badan baa iman lahayd waxyaabaha ku guulaysanay waxa ka mid ahaa inaanu dunida iyo caalamka duwalka ka dhaadhicinay in mucaawimooyinka dhan laga joojiyo si aad baro iyo nidaamkiisii iyo wixii uu dalka u geystay waxa ka mid ahaa guulaha aanu gaadhnay inaan dagaalkii loo arkay dagaal isaaq reer Soomaaliland ku ekaa inaanu ku ekaanay dagaalkii aanu ku fidinay ilaa meesha suufka ilaa waxa weey Ethiopia quruun wala oo Soomaaliyeed oo deegaamada degan inaanu meel kasta dagaalkii inaanu ka dhignay dagaal guud oo Soomaalidu si aad baro kula jirto